maxaa dhici lahaa haddii Kuuriyada Waqooyi ay Iiraan siiso gantaal nukliyeer ah oo noociisu yahay Hwasong 20 Hwasong 20 waa gantaalka ugu awoodda badnaa ay Kuuriyada Waqooyi abid samayso masaafada uu gaari kara waa 15,000 kiiloomitir taas oo ku filan inuu gaadho magaalo kasta oo dunida ka mid ah waxa uu ku shaqeeyaa matoor shidaal adag taas oo ka dhigan in lagu qarin karo gaari xamuul ah kadibna laga ridi karo daqiiqado gudahood halkii ay saacado ku qaadan lahayd sidoo kale qaybtiisa hore ee ballaadhani waxay tilmaamaysaa in loo dhisay hal gantaal inuu ku qaado dhowr madax oo nukliyeer ah isla marka mid ka mid ah gantaaladaasi uu gaadho dhulka Iiraan wax walba oo ku saabsan dagaalkan way isbedeli lahaayeen hadda duqaymo kasta oo cirka ah oo Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadaan Iiraan waxay ku tiirsan yihiin hal xaqiiqo oo ah in gantaalada Iiraan ay yihiin kuwa masaafadoodu gaaban yahay waqti dheerna ay ku qaadato diyaarinta iyo ridistaba halka Hwasong 20 uu labadaas xadidaadba hal mar meesha ka saari lahaa gaadhista halista Iiraan waxay ka gudbi lahayd heer gobol oo waxay gaadhi lahayd heer caalami ah halka waqtiga ay ku qaadanayso diyaarinta ridistuna uu saacado ka soo degi lahaa ilaa daqiiqado ayaa uu iman lahaa dal bilo badan la duqaynayay ayaa si lama filaan ah u noqon lahaa dal aan si fudud loo duqayn karin iyadoo la og yahay in khatarta weerar lagu qaadaa cawaaqibtiisu ka fogaanayso bariga dhexe oo wadan kasta halkiisa loogu imanayo sidoo kale hubkan looma baahnaanayo in la soo mariyo badweynta diyaaradaha Iiraan waxa ay mar kasta tagaan Pyongyang iyagoo maraya hawada Ruushka iyo Shiinaha hal duulimaad hal sanduuq waxaana dalka dunida ugu cunaqabataynta badan uu haysan lahaa hub awood u leh inuu gaadho Washington cid ka baxsan labada dawladood midkoodna ma ogaan lahayn xilliga saxda ah ee ay arintaasi dhacayso